haddii aad ka cabanaysid haaraha wejiga galo ama wejiga uu haaro kaa leeyahay, haddaba isla gaar alaabtan yarta oo weelka inoogu jirto. Ayada ayaa kaa dhamaynayso haarahaas wejiga muddo yar oo kooban, insha Allah wejigana kuu cadaynayso oo liisho kaaga dhigayso weji bilaa haaraha, insha Allah ilaahay idinkiis. Sidoo kale haddii aad ka cabanaysid finan wejiga ah oo hadda finan ay nafta kuu keeneen oo wejigaaga finan leeyahay, haddaba ayadana isla gaar alaabtan yarta. Ayada ayaa finankaas kaa dhamaynayso oo wejigana liisho kaaga dhigayso weji bilaa fin ah. Sidoo kale haddii aad ka cabanaysid nabro hore oo wejiga ku madoobaaday oo wejigana ku dhintay, haddaba ayadana isla gaar alaabtan insha Allah. Nabrahaas madowga iyo finankaas wejiga kaaga yaalo oo dhan ayada ayaa kaa nadiifinayso oo kaa soo gelin garaynayso wejigana hadda liisho kaaga dhigayso, insha Allah ilaahay idinkiis. Kana bogta walaalahayga fiidiyowga soo socdo alaabtan waxyaabaha aynu ka hagaajisanayno iyo sidaan u samaysanayno. waana ku mahadsantiin walaalahayga mar walbo sida quruxda badan ay ila socotiin walaalahayga. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Asxaabta ku xiran Najax Kitchen and Beauty, soo dhawaada walaalahayga meel walbo aad joogtiin, dhammaantiin kusoo dhawaada channelkeena Najax Kitchen and Beauty oo barateen isqurxinta dabiiciga. waa walaashin hadeenaysid cashar kale cusub ayaa walaalahayga maanta inoo wada. sida title video kusoo aragteen qaybta ugu horeysa videoga aad kusoo daawateen wixii hadala qaybta ugu horeysa videoga ayaan kusoo koobay walaalahayga. marka hadda hadalka inuu kuguma badinayo, insha Allah alaabtan dheelitiranka ayaan kasoo tuurinayna wejiga haaraha iyo finanka iyo madowga wuxuu dhan hadda ka dhamaynayso wejigana hadda liishaha ka dhigayso, insha Allah. kana bogta walaalahayga videoga soo socda waxyaabaha aynu ka hagaajisanayno iyo sidaan u samaysanayno. bismillaah, alaabtii ayaan samaysanayna walaalahayga haaraha iyo finanka wejiga ka dhamaynaysa wejigana cadeynaysa hadda liishaha ka dhigaysay. marka hore walaalahayga waxaan soo qaatay weel yar oo alaabta aan iskula dardarsano. sidoo kale marka koowaad waxaa u baahanta weelka waxaan ku shubo waxaa waaye waa bariis shiidan waaye walaalahayga. bariis cadde aan soo shiiday oo hal qaanda ayaan ku shubay weelka walaalahayga. sidoo kale walaalahayga waxaan kaloo ku daray hal qaando waranga ayaan ku daray walaalahayga bariiskii weelka yaraa markii hore inagu jiray. warangadana waa tan walaalahayga aan isticmaalayo konfalo ayaa ku qoran walaalahayga. waxaana ka heleysiin supermarketyada iyo dukaamanka meel walbo ayaa lagu iibiyaa walaalahayga. sidoo kale walaalahayga waxaan kaloo ku darsanaynaa waxaa waaye wax weelka yarka waxaa inagu jiro waa biyaha baradhada waaye ama dheecaanka baradhada sida u taqaanid. baradhada walaalahayga markii aan dheecaanka aan ka bixinayay ama biyaha aan ka bixinayay inama tusin walaalahayga, waan ka xumahay. marka sida dheecaanka looga bixiyo ayaa inii sheegaya, insha Allah inay fahmi doontiin ayaa rajeynaya walaalahayga. sida aan dheecaanka baradhada uga baxshay waxaa waaye marka hore hal xabo baradho ayaan soo qaatay, kabacdina waan fiiqay. markii aan fiiqay waxaan soo qaaday birta karootada lagu hoolo, baradhadii ayaan ku hoolay. baradhadii markii aan hoolay kabacdi waxaan soo qaatay miiro yar, waa miiro baradhadii walaalahayga. dheecaanka sidaas ayaan uga baxshay. marka insha Allah intaasoo dheecaana ayaa inooga soo baxday halkii xabo baradhadeed aan hoolay oo aan soo miiro walaalahayga. inaad fahanteen ayaan rajeynaya walaalahayga. biyihii baradhada ayaan waxaan ku darsanay hadda alaabteeni weelka inoogu jirtay. marka haatan waxaan isku qasayaa walaalahayga alaabtii iyo biyihii baradhada ayaan isdhexgelinaya walaalahayga. alaabta inaba caadi maan muddo yar oo kooban haddaa isticmaashid hubaal adi iyo nabar iyo haaro waa isdeyseen, insha Allah ilaahay idinkiis. walaalahayga alaabta markaan isku soo qasay sidoo kale waxaan kaloo ku darsanaynaa hal jab oo liin dhanaana ayaan ku miiraya walaalahayga. haddana alaabtii waan isdhexgelinaya walaalahayga. jabkii liin dhanaanta ahayd markii aan kusoo miiray alaabtii haddana waan isku qasaya oo si fiican ayaan isku dhexgelinaya walaalahayga. alaabtii markii aan isku soo qasay oo si fiican aan isku soo dhexgeliyay walaalahayga, sidaas ayay inoogu soo baxday alaabtii. sidaas ayayna diyaar inoogu tahay. haatan oo kaliya waxay u baahan tahay in la isticmaalo oo jag la isku siiyo. marka sida u isticmaalaysaa waxaa sameynaysaa marka hore alaabtaada fudud ayaa diyaarsanaysaa. markii aad diyaarsatid wejiga ayaa iska soo dhaqaysaa oo iska soo nadiifinaysaa. kabacdina hadda buraashkaaga soo qaadanaysaa, alaabta ayaa soo dhex gashanaysaa. wejiga ayaad alaabtan marsanaysaa oo saaranaysaa. markii aad wejiga alaabtan marsatid waxaa la rabaa inaad wejiga ku masaaj gelisid. la rabaa kaliya intaa wejiga qabatid inaad iska marsatid lama rabo ama iska saaratid. waxaa la rabaa si yaroo tartiiba inaad wejiga alaabtan ugu masaaj gelisid. 2 daqiiqo camal ayaa la rabaa wejiga inaad alaabtan ku masaaj gareysid oo hadda si fiican u marisid oo wada gaarsiisid. markii aad sidaas samaysid alaabtan waxaa ku joogaysaa 20 daqiiqo 30 daqiiqo 15 daqiiqo adiga sidii aad jaanis u haysid ayaad alaabtan wejiga ku haynaysaa oo ku joogaysaa. markii alaabta ay kugu qalasho ayaad iska mayraysaa oo aad iska dhaqaysaa. alaabtan wiigii haddii aad 3 maalin aad ka isticmaashid hubaal inaad haaro iyo finan warkaas inaad isdeyn doontiin, insha Allah ilaahay idin.
alaabtan wiigii markii aan ku dhahayo 3 maalin ka isticmaal ma aha 3daas maalin inay haarahaas iyo finankaas oo dhan kaaga suulinayso. waxaa la rabaa alaabtan inaad si toos ah u wadid ilaa haaraha iyo finanka ee wejiga ay kaaga dhamaadaan. waxayna kugu qaadan kartaa 2 wiig 3 wiig. wiiga ugu horeeya waa laga yaabaa hadday finankaaga aysan zaa'id ahayn oo kale oo markaas ay cusub yihiin oo kale inay kaa damiso oo wejiga ay liisho kaaga dhigto oo finankii ay kaa dhamayso. laakiin haddii aa haaro leedahoo kale waxaa la rabaa inaad u samirtid aa la rabaa alaabtan oo u dulqaadatid 2 wiig 3 wiig inay kugu qaadato ayaa laga yaabaa. waa haddii wiigii aad 3 maalin aad si toos ah uga isticmaashid oo hadda 3daada maalin aad joogtaysid oo si toos ah u wadid insha Allah ilaahay idinkiis. sidoo kale haddii ay finan madow wejiga kaaga yaalaan oo finan madow wejiga mar hore kaaga dhinteen oo finan mar hore ah oo wejiga kaaga madoobaadeen ayadana waxaa loo baahan yahay alaabtan inaad u samirtid insha Allah. waxaa laga yaabaa 2 wiig oo u horeyso inay finankaas madowga wejiga kaasoo kala gareyso oo wejigana nadiif iyo liisho iyo qurux kaaga dhigto insha Allah ilaahay idinkiis. marka walaalahayga waxyaabaha dabiiciga oo jirka lagu qurxiyo mar walba wuxuu u baahan yahay samir iyo dulqaad ay u baahan yihiin. marka samirka iyo dulqaadka hala badiyo insha Allah natiijada waad arkaysiin insha Allah ilaahay idinkiis. sidoo kale walaalahayga waxaan kale oo idinka ilaawo markii hore oo alaabta aan isku dardarsanayn waxaan alaabta aan ku darsanay walaalahayga liin dhanaan hal jab ah ayaan alaabta aan ku darsanay oo aan ku miiranay. liin dhanaanta marka waxaa sameynaysaa wejigaaga haddii aad daawo marsatid ama daawo kiimikaala aad isticmaashid haddaba liin dhanaanta ha ku darsanin. laakiin wejigaaga haddii uu yahay sidii naturalka ahayd oo waxyaabaha beautyga ama waxyaabaha naturalka ama waxyaabaha bilaa kiimikaalka aad isticmaashid oo kale waad ku darsan kartaa liin dhanaanta. laakiin haddii wejigaaga aad daawo marisid oo kale ama waxyaabaha kiimikaalka ah wejiga u isticmaashid oo kale haddaba liin dhanaanta ha iskugu dhawaanin insha Allah oo alaabta ha ku darsanin inta kale isku dardarso. hadda walaalahayga waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo. waa inoo kulanta dambe oo xiiso leh iyo anigoo inii sido video kale cusub walaalahayga. videogaana insha Allah sii share gareeya si ay walaalo badan uga faa'iideystaan. channelka haddii aad ku cusubtaana soo dhawo minankaaga waa channelka inoo subscribe garee inoo like garee. haddii aad hore noola joogtana waad ku mahadsan tahay sida quruxda badan aa inoola joogtid.